أولا السلام عليكم daawada kusoo dhawow channelka aqoon official waa anigoo Ustaad Naasir Cali Axmed oo idinla socodsiinaya maadada chemistry-ga part 2 maanta waxaan qaadan doonaa qaybtii u dambeysay waxaan ka shaqeyn doonaa ugu horeyn meelaha banaan buuxi kadibna su-aalihii kale ayaan xalin doonaa meelaha banaan buuxi marka waxaan haysanaa tablekaas ereyada ku qoran waxaana ku buuxinaynaa meelaha banaan the general structure of organic acid marka waxaa noo noqonaa waxaan ku buuxinaynaa R COOH ayaan ku buuxinaynaa su-aasha labaad the alcohol that contain two hydroxyl group is called maxaa loo yaqaanaa dihydroxyl ayaa loo yaqaanaa halkaas banaan ayaan ku buuxin doonaa marka halka banaan ayaan ku buuxinaynaa su-aasha saddexaad ayaan usii gudbaynaa amino acid is a protein joined together by dash way banaan tahay waxaan ku buuxinaynaa marka peptide ayaan ku buuxinaynaa marka bond noo qoran yahay waa peptide ayaan ku buuxinaynaa marka waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee afraad general formula of alkene marka waxaa noo noqonaa C sub n H2n minus 2 ayaa noo noqonaa marka waxaan ku buuxinaynaa C sub n H2n minus 2 su-aasha ku xigta the building unit of triglycerides iyo waxaan haysanaa marka glycerol waxaan ku buuxinaynaa fatty aan ku buuxinaynaa halkaas fatty acid waa dash way banaan tahay chemical state which the rates forward and reserve reactions macnaa noqonaa marka waa chemical ayaan ku buuxinaynaa halkaas chemical ayaan ku buuxinaynaa qaybta ku xigta marka toddobaad the chemical constituents of the living system called waxaa loo yaqaanaa bimolecules aan ku buuxinaynaa halkaasna bimolecules su-aasha ku xigtay sideedaad radioactive decay which carry positive charge kaasoo qaada marka positive charge is known as waxaa loo yaqaanaa alpha particle aan ku buuxinaynaa halkaasna alpha particle su-aasha sagaalaad in equilibrium constant expression if the value of Kc is greater than to kawan yahay marka 1 Kc greater 1 marka waxaan dhehnaa reaction ka state to be product oo noqonaa halkaas waxaan ku buuxinaynaa product molecules with the same molecular formula but different structure macnaa noqonaa waa isomers marka isomers ayaan ku buuxinaynaa halkaasna waxaan u gudbaynaa marka qaybaha xiga ayaan u gudbaynaa su-aasha ugu horeysa waa su-aal direct waa marka su-aalaha direct qaybaha dambe ayaan xalin doonaa ayaan soo gelin doonaa la socod wanaagsan waxaan u gudbaynaa marka su-aasha ku xigta ee B ayaa u gudbaynaa marka give iobag names kan keenina of the following molecules ka haysano kan koowaad markaa fiirino waa 2 methyl butane waa 2 methyl butane ayay noo noqonaysaa sawirka A markaan fiirino sawirka B markaan fiirinona aan haysano waxay noo noqonaysaa marka 4 bromo 5 methyl hexene ayay noo noqonaysaa waa 4 bromo 5 methyl hexene ayay noo noqonaysaa marka haddaan fiirino nambarka ku xiga marka saddexaad ama C xarafka C aan haysano iyadana marka waxaa noo noqonaysaa marka sawirka markaan fiirino waa 2 waxaa noo noqonaysaa 2 chloro 1 propanol ayay noo noqonaysaa iyadana waa 2 chloro 1 propanol ayay noo noqonaysaa marka halkaas ku qornaynaa waa C waa marka iobag nameska nambarka u dambeeya ee su-aasha B waxaan haysanaa D-na marka waxay noo noqonaysaa iyadana propionic acid ay noqonaysaa marka D waxay noo noqonaysaa propionic acid ay noo noqonaysaa marka waa iobag nameska waa marka su-aasha ku xigta ee labaad waa su-aal direct marka su-aalaha directina waxaan xalin doonaa qaybaha dambe xalin doonaa waxaan u gudbaynaa marka su-aasha saddexaad draw possible structure-ka waxaa sawiraysaa structure-ka macquulgalka formula loo isticmaalayo pentane isticmaalaya marka formula waxaa haystaa 2 power n minus 4 plus 1 ayaa haystaa marka
marka waxaan soo saaraynaa inta qaab ee loo sawiri karo marka hore oo benteen ah. Formulas anagoo isticmaalayna waxaan soo saaraynaa inta qaab ee loo isticmaali karo. Marka maxaa haysanaa formula maxaa waaye? Formula haysano waa 2n minus 4 plus 1 ayaa haysanaa marka. Formula haysano waa kaas. Waxay noo noqonaysaa 2 oo ku jibaaran n minus 4 plus 1. maadaama ay haysano benti meeqa waaye? waa 5 waaye marka. 2 power 5 aan dhahaynaa. 2 power 5 waxaan ka jaraynaa marka minus 4 plus 1. marka 2 power 5 minus 4 haddii la kala jaro maxaa soo haraya? 2 la soo harayso plus 1 aan dhahaynaa marka. 2 plus 1 meeqa waaye? 3 waaye marka. marka structure-ka la samayn karo waa 3 qaab waa marka. 3 nooc ayaa loo sawiri karaa. 3 qaab ayaa loo sawiri karaa marka. marka 3 qaab waan sawiraynaa ay noqonayso ama loo sawiri karo ayaan fiirinaynaa marka. maadaama hadda uu soo baxay inta qaab aan u samayn karno formula ahaan aan kusoo saarnay. marka 3 qaab oo noqday 3 qaab ayaan sawiraynaa marka. 3 qaab. qaabka koowaad marka waxaan sawiraynaa 5 kaarboon aan sawiraynaa. waa 5 kaarboon ayaan sawiraynaa marka. 5 kaarboon markaan sawirano kaarboon walba oo waxaan siinaynaa marka waxaa ka dhigaynaa saturated ka dhigaynaa marka mid walba. oo kan koowaad waxaan ku xiraynaa 3 hydrogen, kan kale 2 hydrogen, 2 hydrogen, kan ugu dambeeyana waxaan ku xiraynaa isagana 3 hydrogen aan siinaynaa marka. waa midda koowaad waa marka qaabka koowaad ee loo sawiri karo waa marka. midda labaad waxay noo noqonaya marka. midda labaad ee loo sawiri karo waxaan sawiraynaa 4 kaarboon aan sawiraynaa marka. 4 kaarboon ayaan sawiraynaa marka. kaarboonka labaadna waxaan ku xiraynaa kaarboon kale aan ku sameynaynaa marka. marka mid walbana waxaan ka dhigaynaa waxaan ku xiraynaa hydrogen aan ku xiraynaa marka. mid walba hydrogen ku xir marka. waa step-ka labaad ama qaabka labaad ee loo sawiri karo. mid walba hydrogen oo labada dhinac ah, labada ugu dambeysana min 3 aan ku xirno marka. waa midda labaad waa marka step-ka labaad. step-ka saddexaad ee noo noqonaysa marka aan sameyno iyadana waxaa sameyn kartaa 4 kaarboon aan sameyn kartaa, 3 kaarboon waa ka sameyn kartaa adoo sameynayo. waxaa lagaa rabaa marka inaad ka sawirtid benteen inaad ka sawirtaa lagaa rabaa. marka 4 kaarboon aan sameysanay kaarboonka marka labaad waxaan ku xiraynaa marka ayaa kaarboon siinaynaa marka. waxaan kusii xiraynaa marka mid walba hydrogen marka. hydrogen ayaan mid walba siinaynaa marka. kana hydrogen sii, kana hydrogen dhinacan ka sii, sidoo kale 2 hydrogen, kana hydrogen sii, sidoo kale kana 3 hydrogen ayaan ku xiraynaa marka. 3 hydrogen waa qaabkii saddexaad ee loo sawiri karo. waxaan u gudbaynaa marka su-aasheena ku xigta ayaa usii gudbaynaa marka. su-aasha ku xigta waxay noo noqonaysaa waa su-aal direct waaye. qeybaha dambe aan xalin doonaa. sidoo kale tan ku xigtana waa su-aal direct ah. qeybaha dambe ayaan xalin doonaa. waxaan u gudbaynaa marka su-aasha shanaad ayaan u gudbaynaa. su-aasha shanaad calculate the equilibrium constant Kc aa noola diray if the equilibrium concentration as follows sida soo socota waaye marka. marka waxaan ku raadinaynaa qaacidada ah waxaan haysanaa marka Kc aa noola diray. waxaa noola diray waa Kc waa marka. waxaan raadinayna Kc oo noqday. Kc na maxaa lagu helaa marka? Kc waxaa lagu helaa BCl3 oo lagu dhiftay BCl2 oo loo qaybiyey BCl5 ayaan dhahaynaa marka. qaacidadaas ayaan ku dhisaynaa Kc-ga. aan ku celiyo waa BCl3 oo lagu dhiftay Cl2 oo loo qaybiyey BCl5. marka BCl3 maxaa haysanaa? waa qiimaha haysanay waa 0.0247 ay haysanaa marka. qiimahaas ay ku bedelinaynaa waa 0.0247. waxaan ku dhufanaynaa marka Cl2 aan noola siiyey oo ah 0.0247 waasna. waxaan u qaybinaynaa marka Cbl5 waxaan u qaybinaynaa oo ah 0.0096 ayaa haysanaa marka. intaas kore isku dhufo qaybta hoos u qayb marka. Kc maxay la mid tahay waa 0.0635 waa marka. ama soo buuxsan kartaa waxaad dhihi kartaa 0.0335 ayaa dhihi kartaa marka. waxaan u gudbaynaa su-aasheena ku xigta ee lixaad ayaa usii gudbaynaa marka. su-aasha lixaad
su-aasha lixaad waxaa haysanaa marka waa su-aal direct ah marka qeybaha dambe ayaan ku xalin doonaa. Waxaa u gudbaynaa su-aasha ku xigta sideedaadna waa direct. Waxaa u gudbaynaa su-aasha sagaalaad u gudbaynaa marka. Su-aasha sagaalaad cafwan aan iraahdo su-aasha lixaad waa calculation. waa su-aasha lixaad aan xalino. su-aasha lixaad waa calculation waan xalinaynaa marka iyada. su-aasha lixaad waxaa noo diray half life kana la rabaa marka half life ayaa la rabaa. Marka waxaa given noo ah marka given waxaa noo ah initial ka ah haysano waxaa given noo ah initial ah haysana oo ah initial time iyo half life waa haysanaa marka. Waxaan dhahaynaa initial quantity ga haysano waa 2 milligram ayaa haysanaa oo 2 milligram ayaa haysanaa initial quantity ga. Sidoo kale half life ka ah haysano waxaa meeqa waa marka waa 138.4 haysanaa marka oo days ah ayaa haysanaa. Sidoo kale time ka ah haysano meeqa waa time ka ah haysano waa waxaa haysanaa 415.2 days ayaa haysanaa iyadana waa time ka ah haysano waa. Marka waxaa noo diray marka substance remain ka ah noqon doona noo diray marka quantity ama substance remain ka ah noo diray. Marka waxaan ku helaynaa marka qaacidada fudud iska isticmaalaynaa. Marka waxaan soo saarnaynaa waxaan dhahaynaa qaacidada isticmaalaynaa time kii ayaa waxaan u qaybinaynaa days ka u qaybinaynaa marka. Time ka meeqa waa 415.2 oo days ah haysano waxaan u qaybinaynaa days ka kale ah haysano oo ah 138.4 oo ah days ah. Days iyo days na waa isla bixinaynaa. Marka waxaa noo soo haraya intaasna isku qaybi. Marka isku qaybisna waxaa kasoo bixi doona marka waa 415.2 hadaa u qaybino 138.4 waxaa kasoo bixi doonta 2 kasoo bixi doonta halkaas. Maya waxaa kasoo bixi doonta cafwan 3 kasoo bixi doonta markaas u qaybino marka. Waxaa kasoo bixi doonta 3 kasoo bixi doonta. Marka waxaan dhahaynaa marka mass ki ayaa waxaan u qaybinaynaa 3 maadaama 2 ku jibaaran 3 aan dhahaynaa labadaasna waa mar walba sharci laakiin labada koreyso waa mass ka waa. Marka 2 3 jeer isku dhif waa 8 2 loo qaybiyo 8 na meeqa waa 0.25 waa marka aad tijaabin kartaa oo soo saari kartaa. Waxaa u gudbaynaa marka su-aasha ku xigta ee toddobaad. Intaas su-aasha lixaad ay ahayd waxaa u gudbaynaa su-aasha toddobaad marka. Su-aasha toddobaad waa su-aal direct ah qeybaha dambe ayaan xalin doonaa. Su-aasha sideedaad sidoo kale waa direct. Waxaa usii gudbaynaa su-aasha ku xigta ee sagaalaad. Su-aasha ku xigta ee sagaalaad radioactive isotope ka oo haysano oo potassium ah emits of radioactive emission oo soo daayay and changes wuxuu isku bedelay argon ayuu isku bedelay marka. Marka waxaan sameynaynaa balanced equation ka sameynaynaa of this nuclear reaction ka ayaan sameynaynaa marka. Waxaa haysanaa waa potassium haysanaa oo kii ah oo 19 atomic number kiisa ah. Waxaan sidoo kale wuxuu noqday argon ayuu noqday. Marka plus waxaan ku daraynaa electron aan ku daraynaa oo atomic number kiisa 1 yahay atomic mass kiisana uu 0 yahay marka. Intaas ayay ku dhamaatay iyada. Sidoo kale waxaan u gudbaynaa marka su-aasha 10aad. Show the electron configuration muuji fluorine iyo waxaa haysanaa chlorine ay haysanaa marka. Fluorine oo atomic number kiisa 9 iyo chlorine oo ah atomic number kiisa 17. Marka fluorine marka furno maxay noqonaysaa marka H koowaad oo ah 2 ah H labaad oo 2 ah B da labaad oo ah 5 marka. Sidaas oo furnay 2 isku dar 4 5 ku dar 9 marka. Sidoo kale waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta chlorine oo 17 ah. Chlorine marka furno H koowaad meeqa qaadanay waa 2 H labaadna waa 2 B da labaadna maxaa qaadanay marka waxaan siinaynaa 6 aan siinaynaa. Sidoo kale H saddexaadna marka waxay noo qaadan doontaa 2 ayay noo qaadan doontaa H saddexaad ah. Sidoo kale H marka saddexaad markaan 2 siino waxaa noo soo haray marka 5 noo soo haray waxaan siinaynaa B da saddexaad aan siinaynaa marka B oo ku jibaaran 5. Marka intaas isku dar meeqa waa 2 2 4 6 ku dar 10 10 2 ku dar 12 5 ku dar 17 ayay noqonaysaa marka. Halkaas waxaa u gudubnay marka wixii calculation ah
haddana waxaan galaynaa marka su-aalaha directiga ayaan u gudbaynaa. Su-aasha koowaad waa kana what does IUPAC stands for muxuu taagan yahay. Su-aasha labaad three uses of phenol waxyaaba saddex loo isticmaalo. Answers kuu qoran yahay marka question 1 question 2. Su-aasha afraad define the term biochemistry waxaa la briefly explain major of types of biochemistry. Su-aasha toddobaad rate of chemical reaction increases with the presence of catalyst explain. Thank you. Aad mahadsantihiin. Haddaad channelka cusub tahay subscribe mahadsanediin.